mid ka mid ah arrimaha ugu muhiimsan waa inaad cunto wanaagsan oo caafimaad leh aad cuntaa haddii aad ka baqayso sokor. Cuntooyinka caafimaadka leh waxay kaa caawinayaan ka hortagga sokorta, dhiig xinjirowga ka dhasha dufanka, dhiig karka iyo xitaa cayilka. Daawada inta aan la gaarin waxaa jira arrimo aad jirkaaga ku caawin karto si xanuunada qaar aad uga badbaado waa haddii alle uu kaa leexiyo. Cuntada aad cunayso waa midda go'aaminayso heerka ay gaarayso sokorta jirkaada galayso. Sidoo kale waxaa ku xiran xilliga maalintii aad cunayso. Cuntooyinka sokorta badan leh ma wanaagsana in la qaato xilliga la seexanayo iyo marka shaqadaadu ay u badan tahay shaqo fadhi. Haddaba muuqaalkeenan waxaan kugu soo gudbinayaa 10 cunto oo ay tahay inaad iska ilaaliso haddii aad sokor qabto ama haddii aad sokor ka baqayso. Hilibka cas ama hilibka gaduudan waxaa ka buuxa dufan adag oo aad u badan kaas oo sababa wadna xanuunka iyo cudurka sokorta ama macaanka diabetiska. Haddii horey ay kugu dhacday, haddaba hilibka xaaladaadii ayuu sii siyaadinayaa. Waxaa jira waxyaabo ku jira hilibka gaduudan oo shaqada xameetida cusleeya. Sidoo kale maadooyin ku jira ayaa dhibaato ku noqon kara daawada ay isticmaalaan dadka qaba xanuunka sokorta. Buskudka laga badiyay sokorta iyo cusbada waxaa suuragal ah in macaankooda aad jeceshahay ama dhadhankooda uu aad kuu soo jiitay, balse sida xaqiiqada ah uma wanaagsana caafimaadka. Waxaa ka buuxa cusbo, dufan iyo waxyaabo kale oo lagu macaaneeyay. Dhammaan waxay sababi karaan sokor ka buuxsanta dhiigga iyo inay sare u kacdo sokorta jirkaaga. Haddii kafeega aad suuqa ka soo iibsanayso oo aadan guriga ku karsanaynin, haddana ma qiyaasi kartid sokorta iyo waxyaabaha lagu daray. Waxaa fiican in aad guriga ku samaysato, lacag iyo waqtiba ay kuu badbaadayaan. Midka meelaha lagu iibiyo ama midka meelaha lagu kariyo waxaa badanaa ku jira dufan kuu keeni kara saameyn aan caadi ahayn, wuxuuna sababi karaa in dhiigaaga ay gasho sokor badan. Nacnaca waa suuragal inaysan la yaab kugu noqonin. Nacnaca wuu u daran yahay dadka ay sokortoodu kor u kacdo, wuuna u fiican yahay kuwa ay hoos u dhacdo, balse midka caafimaadka qaba uma wanaagsana inuu iska badiyo. Nacnaca waad cuni kartaa, balse waa inuusan noqonin mid joogto ah ama maalinle aad u isticmaalayso. Waxa ugu wanaagsan waa in cuntada jirkaaga galayso ay isku dheelitiran tahay. Ma kula tahay in qudaarta ay wax u dhimi karto caafimaadkaaga? Waxaa ka buuxa borotiino wanaagsan, balse qaarkood waxay leeyihiin sokor badan. Haddii lagu sii daro mid dheeri ah, dhibaato caafimaad ayay kuu keeni karaan. Haddii aad cabayso cabitaan lagu sameeyay qudaar, waa inaad iska eegtaa ama aad iska hubisaa inay sokor ku jirto iyo in kale. Haddii ay sokor ku jirto, ka fogow oo caafimaadkaada ayuu u daran yahay. Biyaha la macaaneeyay yaa lagu gaadin ama lagu sirin. Way jiri karaan xayeysiismo kaaga dhigaya wax fiican, balse uma wanaagsana caafimaadka iyo dhiigaba. Biyaha macaan laga dhigay ma ahan kuwa caafimaad leh. Mayoneeska markasta mayoneeska waxaa ka buuxa dufan iyo saliid caafimaad daro laga qaado caloosha, wadnaha, boga iyo jirka intiisa kaleba u daran. Waxaa ku jira sodium sababta oon badan iyo carbohydrates. Haddii aad doonayso inaad cuntada ku macaanaysato, haddaba raadso wax kale oo dhaama sida saliid saytuunta. Caanaha warshadaysan dadka qaba xanuunka sokorta waxay noqonayaan kuwa aysan karin daawada haddii caano ay cabaan. Sidoo kale dadka aan qabin xanuunada uma wanaagsana caanaha warshadaysan maadaama ay leeyihiin dufan badan oo caafimaad daro ah. Cabitaanka caajiska la isaga kiciyo ama energy drinks qaar ka mid ah cabitaanada waxaa suuragal ah inaysan lahayn dhadhan macaan, balse waxaa ka buuxa sokor oo keenta in awooddaada ay kororto. Inta badan halkii xabo oo energy drinks ah waxaa ku jira 40 gram oo sokor ah. Cuntooyinka iyo qudaarta gasacaysan waxaa ka buuxa sodium taasoo aan si wanaagsan u saameyn doonin jirkaaga.
waxay leedahay dhibaato caafimaad waxaadna raadsan kartaa noocyo kale oo aan cusbadu ku badnayn.